السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز عشرة Elementor. So maanta waxaan sameynayna qaybta home page aan sameynayna waxaan ku dhufanaysaa edit with Elementor. So waxaan ku soo saari doonaa qaybta markaasi interface-ka loo yaqaano Elementor-ka aad ku edit gareyn lahayd ayuu ku soo saari doonaa. Waxaan ka bilaabaynaa hero session-kan ayaan ka bilaabaynaa wixii qoraalo marka waxaan ka soo qori doonaa ChatGPT. dabcan qoraaladana adaa qoran doono qoraalo ku saabsan information-kaada qoraysa haddii aad markaasi doonaysid inaad website-kaada ka dhigto website rasmi ah. So hadda waxaan sameynaynaa add ayaa dhigi doonaa kadib waxaan sameysanaynaa layout. soo qaybta hore waxaan rabaa inaan qaybtan qoraalo ku qoro qaybtan inaan soo geliyo marka waxaan dhigi doonaa qaybtan ku dhufanaya kadib layout qaybtana dooranaya marka labada dhinac kaliya ay ku siinaya. soo labadan dhinac la sameynaya labadan dhinac ayaa la sameynaya qaybtan iyo qaybtan. soo waxaan sameyn doonaa marka qaybtan ku soo dari doonaa add ayaa ku dhufan kartaa ama drag and drop ku soo sameynaysaa qaybtan add element ayaa leedahay kadib element ayaa soo darajareynaysaa meeshan ayaa soo gelinaysaa. su'aal heading aan rabnaa soo darajareynaa halkan soo gelinaa sidoo qoraal caadi oo rabnaa inaan qorno waxaa soo darajareynaa text editor-ka sidoo kale waxaan rabaa inaan qoro waxyaalo kale inaan sameeyo sida buttons kale waxaa soo darajareynaa button-kan iyo button kale. soo laba button aan rabnaa labadaas button waxaan rabnaa inaan addina ayaan rabnaa. soo marka laba button size ku addito waxaa soo dooranaysaa koodi hore containerka halkan ku soo darajareynaysaa. soo button koowaad iyo button labaad ku soo darajareynaysaa marka sababtoo waxaan rabnaa inaan laba button is addina rabnaa marka button-kana soo gelinaya haddana button kale soo gelinaya. soo maadaama laba button isku mid ay yihiin haddii aad wax soo geliso wax samayn kartaa inaa wixii aad ku biisa ama duplicate gareysa ayaa samayn kartaa. soo waxaad dhigi kartaa right click kadib waxaad dhigi kartaa duplicate saa ujeed laba button ayaa laga dhigay marka waxaa bedbedelaynaa marka qoraaladan waxaan ku bedelaynaa qoraalo noocan oo kale waxaan dhigi doonaa I am kadib magacaada sheegaysaa waxaan dhigi doonaa marka I am kadib magacaada sheegi doonaa waxaan dhigi doonaa I am Maxamed oo kale kadib meeshaan waxaad ku qoraysaa qoraal caadi ah qoraalka wax kasoo joobiisan doonaa qaybtan waxaan kusoo baas jareynaa marka halkan labadan button waa bedelaynaa buttonka waxaad ku qoraysaa oo kale view projects soo linki aad diraysin waxaa noqonaysaa qaybta marka website-kaada qaybta projects ka noqonaysaa. soo waxaad soo koobiyeysanaysaa linki website-kaada kadib waxaa leedahay slash projects buttonka labaadna waxaan ka dhigaynaa in markaa qofka uu arko waxyaalaha markaas services keeno kale waxaan dhigaynaa our services kadib waxaan gelinaynaa marka linki website-ka waxaan dhigaynaa slash services wuxuu geeni doonaa page-ka markaas serviceska ayuu geeni doonaa. okay soo marka hadda waxaan sameynay labadan qayb waxaan soo gelinaa marka qaybtan kale sawirkaa soo gelin doonaa markii aad sawirka intaadan soo gelin waxaad dhigaysaa meesha add kadib waxaad soo qaadanaysaa meeshan widget-ka loo yaqaano image oo soo darajareynaysaa halkan ay ku soo darajareynaysaa widget-kan marka wuxuu kuu suuragelinaa inaad sawir halkan soo geshan karto marka halkaana sawir soo gelinayna sida loo soo gelinaa waa soo sharaxnay intaad ku dhufanaysaa kadib sawirkaa soo upload gareynaysaa waa dooranaysaa dabcan. soo waxaa sameynaa marka halkaana klik ku siin doonaa kadib waxaa soo upload gareyn doonaa sawirka soo dooro. soo sawirka hadda uu soo upload gareeyay marka waxaa sameyn doonaa select ayaa dhihi doonaa. soo waxaa soo geli doona marka sawirkaa soo geli doono. soo sawirka sida loo maamulayo uu fududahay dabcan waxaad ka bedelaysaa cabirka daarta qaybtan aad ka bedelaysaa resolution-ka dartaan waxaan ka dhigi karnaa full waxaan ka dhigi karnaa cabirkan oo kale waxaan ka dhigi karnaa cabirkan. soo cabirada meeshan ku diyaarsanaa jiro cabir gaaran waa ka dhigi kartaa dabcan. okay qaybta styleka ka bedelayna dabcan waa kana qaybtan oo styleka ka bedelays almost width si toos meeshan ka bedeli kartaa intaarta ka dhigi kartaa dabcan. okay soo intaan kale hadartaa okay weeyaan qaybtan qoraaladana okay weeyaan. soo button-kan aan sameynay waxaa ku dhufanaa containerka waxaan rabaa labada button marka inaa is agdhido marka containerka waa kana almost waa ku dhuftay waxaa sameyn doonaa marka qaybtan direction-ka waxaa dhigi doonaa sidaan oo kale ka dhig macnaha intaa ku dhufanaa soo labadooda waa la is agdhido doonaa. soo space-ka u dhexeeya waxaa isticmaali kartaa justify content sidoo kale waxaa isticmaali kartaa jab ayaa isticmaali kartaa. soo hadda ma baahnin inaa isticmaalo justify content waxaa isticmaalaynaa jab waxaa dhigi kartaa 30 ama 20 intaa doonaysid ayaa sameyn kartaa. soo hadda almost labada qoraal waa la qoray sidoo kale kan waa la sameeyay. soo marka darta waxaan isku aadinaynaa qoraaladan iyo sawirkan isku aadinaynaa sidoo kale buttonada waa bedeli kartaa kalaradooda. soo button walba waa dooranaysaa kadib waxaa aadi doontaa qaybta marka colorska. soo hadda qoraalka textiisa ujeed wax kalar ma wato waxaa siinayna marka cadaan sidoo kale buttonka kalena waa dooranaysaa waxaa siinaysaa kalarka aadaysaa waxaa siinaysaa marka cadaan ayaa siinaynaa. soo marka hadda labada button waa bedelinaysaa ujeedaan kalar cadaan iyo kalar cadaana siinay waxaan ku dari kartaa hover effect ku dari kartaa waa qaybtan dabcan waa dooranaysaa. soo sidaa doontaa samayn kartaa tusaale kale waxaa samayn kartaa inaad ku darto wax loo yaqaano border. soo qaybtan background type-ka noocu yahay hadartan waa gradient ama kalar caadi ayaa siin kartaa. soo waxaa samayn kartaa background iyo kalar caadi ayaa siin karnaa ama waxaa samayn karnaa background la-aan ayaa samayn karnaa. soo qaybtan kalarka bedeli kartaa markii hover la sameeyo
waxaa kaloo samayn kartaa border ayaa u samayn kartaa background la-aan ayaa samayn kartaa so marka qaybtaas oo hoverka ama mouseka markii loo aadiyo marka haddeertaan waxaan sameynaynaa qoraaladan iyo sawirkan dhexdiisa u aadinaynaa sidoo kale space dhinacyadan ayaa sameynaynaa so qaybtaana dooranaysaa oo 6 dhibic ayaa dooranaysaa so qaybtaana dooranaysaa si containerkan dhan aa u edit gareyso markaad doorto waxaa sameynaysaa qaybta marka alignment ayaa raadinaysaa so marka qaybtan waxay noqonaysaa marka layout so layout marka imaado alignment marka qaybtan aad yeelaysaa tusaale hadda directionkiisa sidan weeyaan waa la bedeli karaa saan oo kale la dhigi karaa ama sidan ama sidan la dhigi karaa so directionkiisa saan weeyaan marka waxa dheena waxay sii aadisaa align ahaan centerkiisa sii aadi dhexda la sii aadin doonaa markay noqoto space in dhinacyada laga soo bixin advanced ay ku jirto waa margin so padding waa isticmaali kartaa so almost margin kan wax sameyn kartaa inaad markaas dhinac walba margin ka aasiso sida caadi wax dhigi kartaa tusaale 20 dhinac walba space la siinaa marka waxaan rabnaa inaad dhinac walba space la siinin marka waxa dheena unlink adheena kadib waxaan rabnaa in labada dhinac bis space la siiyo marka waxa dhigi doonaa qaybta right ka waxa dhigi doonaa tusaale kale qaybta left waxa dhigi doonaa 40 qaybta right kana waxa dhigi doonaa 40 oo kale so sidaas ayaa u sameynaysaa qaybtan hadda right iyo left waxa la sameeyay in marka margin ki space la soo siiyo marka waxa sameynaysaa si page kana waa aragtay isbedelada aad sameysay waxaa dhigaysaa publish dabcan website-kaada fiiri kartaa marka isbedelada ku dhacay sidoo kale waxaa ka fiiri kartaa mobile-kaada almost website waa la booqan karaa meel walbana laga booqan karaa okay so almost marka saan uu noqday background color ku fiican so background color u sameyn karnaa image hadda qaybtan jaritaankan kala loo jeedaa so waxaad soo sameyn kartaa image kan inaad soo hagaajiso adoo marka ku soo sameynaya Adobe Illustrator kale waana fiirin doonaa hadda waa lidmo so marka hadda sidan waa qaybta markaasi laptopka ama desktopka weeyaan waxaana qaybaha kale inaad fiirino tusaale hadii marka lagu soo furo tablet sidan oo noqonaa dabcan waa okay wax isbedel hadda arabna inaad ku sameyno ma jiro hadii noqoto mobile-ka marka sidan oo noqonaa marka mobile-ka waxaan rabnaa in marka sawirka uusan soo muuqan soo kala qoraaladan in space fiican la siiyo okay waxaad doortay hadda qoraalka touchstii ayaa doortay marka waxa dhigi doonaa advanced ka imaan doona so waxa sii doonaa marka qaybtan ayaa waxa ka siin doonaa space so qaybtan marka waxa noqonaysaa left I think marka waxa dhigi doonaa 20 okay left maahan marka right weeyaan so qaybta marka right waxa dhigana marka 10 ama 20 margin ayaa siinayna so space ahaan marka margin waxa siinay 20 oo kale waa ka sii badin kartaa hadii aad doonaysid so space ayuu marka dhinacaas ka soo qaadan doonaa botanada hadii aad doorno waxa sameynayna space ka u dhaxaysiinay waa bedelayna waxa dheena tusaale kale 10 oo kale kadib waa soo yareynayna sidoo kale waxa dheena center ku aadi oo qaybtan waxa dheena marka center so center ka loo aadin doonaa botanada okay sawirka markay noqotana sawirka waa qarinayna so sidee marka loo sameyn karaa in sawirka uu ka soo muuqdo shaashada weyn iyo sidoo kale tablet uusan ka soo muuqan mobile sidee loo sameyn karaa waxaa loo sameyn karaa iyadoo marka la aadi doono qaybta advanced-ka kadib waxaa aadaysaa qaybta responsiveness-ka kadib waxaa dhigaysaa hide on mobile portrait meeshan ayaa marka hide ku dhufanaysaa waa la qarin doonaa so buttons-ka waxaa fiican almost inay dhinacan soo aadaan meeshooda ku soo celinaynaa sidaas uu noqon doonaa marka mobile-ka sidaan uu noqonayaa tablet-kana sidaan qaybta kalena sidaan ay noqonaysaa okay so hadda qaybta waxaan sameynay hero session-ka ama qaybta header-ka waxaan sameynaynaa marka qaybaha kale hadda waa lidmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu